habeen wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada xarunta wararka ee dunida ee BBC London. Qodobada wararka caalamka caawa ugu waaweyn waxay kala yihiin Bangladesh iyo Myanmar ayaa ku heshiiyey in la celiyo muslimiinta Rohingya, laakiin xaaladda dhulka ka jirta bulshada Buddhistaha ee Rakhine iyo muslimiintu ma is aqbali doonaan mar kale. weerarada military ee lagu hayo gooni u goosatada koonfurta Cameroon ayaa keenay in ka badan 40,000 oo qaxooti ay u qaxaan Nigeria, taasi oo sababtay masiibo bini'aadanimo. gabar ganacsato ah oo u dhalatay Nigeria ayaa heshay qaab cusub oo macaamiisha ay ugu keento waxa ka soo go'a beerteeda. bishii hore dalka Myanmar ayaa heshiis ku ogolaaday dib u celinta 700,000 oo ka tirsan muslimiinta Rohingya ee Bangladesh qaxootiga ku ah, laakiin waxaa jira caqabado culus iyo colaad xun oo u dhaxaysa Buddhistaha Rakhine iyo Rohingya. inkasta oo ay horay nabad ugu wada noolaan jireen, rabshado ayaa ka dhex qarxay sanadkii 2012 sida uu ku waramayo Qalib Xasan Baaruud. macbadadan qadiimiga ahi waa hadhaaga boqortooye xooggan oo Buddhista ahayd, waana taariikh xasuusinaysa dadka Rakhine qaranjabkoodii. hadda waxay ku jiraan dadka ugu saboolsan Myanmar. 5 sano ka hor waxay cadhadii kula jeesteen deriskoodii muslimiinta ahaa. dad badan ayaa ku dhintay Rakhine, waxaana la tirtiray degmooyin badan oo Rohingya ah. dhibanayaashii badbaaday waxay ku xidhan yihiin xeryo ay dawladdu leedahay. tani waxay bilow u ahayd colaad qadhaadh oo u dhaxaysa qoomiyadaha, waxayna Bangladesh u barakicisay 700,000 oo qaxootiya sannadkii hore. laakiin dadka Rakhine naxariis uma hayaan deriskooda oo iyagaaba cabanaya. waxayna faqrigooda u aanaynayaan dawladda oo waxay leeyihiin dooni mayno Rohingyaha. inkastoo ay nabad ku wada noolaan jireen, waxa isbedelay ciduma hubto. ninkan oo u dooda siyaasadda dadka Rakhine waxa uu leeyahay waa in muslimiinta Rohingyuhu ay u hoggaansamaan sharciga. muslimiin muwaadiniin noqon kara way jirayaan qaynuunka muwaadinnimada, balse dhinaca kale waynu hubnaa in muslimiin badan si sharci darro ah uga yimaadeen Bangladesh. maanta qaybo ka tirsan Rakhine waxaad ku arki kartaa dad Rohingya ah. bulshooyinka Rakhine waa kuwo kala qoqoban. sawir-qaadayaashii duubay muuqaalkan waxaa il gaara ku hayay booliis dharcad ah. dadka Rohingyuhuna waa kuwo ka qarsan indhaha dadka booqanaya gobolkan. ugu dambayntii waannu ka dhuumannay booliiska. waxaannu helay koox Rohingya ah oo beer ka shaqaynaysa. khatar ayay u tahay inay nala hadlaan. waxaannu qarinnay wejiyada dadkii nala hadlay. waxay noo sheegeen inay ku nool yihiin cabsi, dhaqdhaqaaqooduna yahay mid la xayiray. aad ayay uga fog yihiin xuduudaha Bangladesh. waa safar khatar ah, laakiin hadday awoodaan waxay ku biiri lahaayeen qaxootiga ku sii qulqulaya Bangladesh. in ka badan 40,000 oo qof oo ka qaxay gobolada Ingiriiska looga hadlo ee koonfurta Cameroon ayaa u cararay dhinaca Nigeria. waxay daba socotay howlgal military oo ka dhana kooxda gooni u goosadka ee sanadkii tagay hubka u qaaday aasaaska jamhuuriyadda ay u bixin doonaan Ambazonia. Axmed Xaaji Xasan ayaa faahfaahinaya. kuwan waxay ka mid yihiin kumanaan qoys oo ka soo qaxay Cameroon. Reena waxay kala lumeen xaaskiisa iyo ilmihiisa kadib howlgalkii military kaas oo lagu baabi'iyey tuulada, dhowr qofna lagu dilay. xaaskiisa iyo carruurtiisa waxaa caawiyey gawaari si Nigeria ay u soo galaan, laakiin in ka badan isbuuc ayay ku jireen duurka si rabshadaha ay uga badbaadaan. waxayna cunayeen caleenta geedaha. waxaan maqalnay rasaas, midig iyo bidix ayaan u cararnay. qaarkeen 8 maalmood ay kaynta ku jireen. aniga keligay 8 maalmood ayaan kaynta ku dhex cararayay. weli qaar ka mid ah qoyskayga ma helin. qaxooti badan ayaa dhibaato noocan ah la kulmay. dumarka qaarna waxa ay sheegayaan in la kufsaday. dowladda Cameroon waxaa ku xoog badan bulshooyinka luqadda Faransiiska ku hadla,
waxayna beenisay inay xadgudub geysatay waxay dowladda sheegaysaa in milatariga ay difaacayaan dhulka qaran ee gobolka ingiliishka looga hadlo laakiin qaxooti badan sida kuwan ku nool tuulada abokiim weli waxa ay ka argagaxsan yihiin colaaddii ay la kulmeen haddii aan xorowno waa noqonaynaa laakiin haddii dagaalka uusan dhammaan dib uma noqon doono sababta oo ah ciidamada ayaan ka baqaynaa hubka culus wuxuu xanuun ku reebay qalbigayga haddii aan maqlo rasaas dhacaysa qalbiga ay xanuunayo sida in aan dhiman rabo waxaa soo dhoweeyey dadka deegaanka maadaama aysan jirin xeryo rasmi ah kuwo badan oo aan la wehelina dhibka ayay u nugul yihiin sida uu sheegay madaxa hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay ilaa iyo hadda waa dhibaato adag waa murugo in xaqiiqdii aad aragto qulqulka dad gaar ahaan markaadan dhaqaalo u diyaarsan way dhib badan tahay in la isku keeno oo aan ahayn baqoodintooda marka waxaannu samaynaynay ilaa 1 Oktoobar markii aannu bilownay ficil aannu ku eegayno sidii aannu ku caawin lahayn si aannu u aadno tuulooyinka iyo meelaha yaryar ee dhammaan magaalooyinka xuduudda iyo tuulooyinka xadka Cameroon hay-adaha gargaarka degdega ah waxa ay sheegayaan inay ka fikirayaan samaynta xeryo ay hoy ka dhigtaan dadka qaxootiga ah oo ay tilmaameen in 1 milyan ay tiradooda gaari karto bilaha soo socda haddii nabadda koonfurta Cameroon aysan soo noqonin faahfaahin dheeraada oo ku saabsan warbixintaasi iyo kuwo kaleba waxaad ka heli kartaa bogayaga bbcsomali.com adigoo oo si fudud uga geli kara mobilkaaga bal markan aynu eegno qodobo kale oo ku jira wararka dunida ee maanta madaxweyne ku-xigeenka koonfur afrika Cyril Ramaphosa ayaa wadahadal toos ah la galay madaxweyne Jacob Zuma waxaana uu sheegay in go'aan ku saabsan mustaqbalkiisa la gaari doono maalmaha soo socda waxa uu sheegay inay adag tahay waqtiga lagu jiro dadku si ay xal doonayaan Mr Zuma waxa lagu eedeeyay musuqmaasuq ilaa haddana wuxuu diidan yahay inuu isxasilo madaxweynaha maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee ICJ ayaa loo doortay muwaadin Soomaali ah Cabdulqawi Axmed Yuusuf waxa uu muddo ka soo shaqaynayay maxkamadda waxaana uu shaqada ka soo bilaabay garsoore isagoo u dalacay madaxweyne ku-xigeen iyo hadda oo madaxweyne loo doortay waana Afrikaankii ugu horreeyay ee xilka qabta muddo ka badan 30 sano madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa sheegay in Washington aanay u ogolaan doonin Kuuriyada Waqooyi in propaganda ay ku afduubto ciyaaraha Olombikada ee qaboobaha isagoo oo ka hadlayay Japan ka hor furitaanka ciyaaraha ee Jimcaha Mr Pence waxa uu sheegay in Pyongyang ay adoonsato dadkeeda halisna ay ku tahay gobolkaasi oo dhan xiriirka ka dhaxeeya Turkiga iyo Mareykanka ayaa ku dhow in uu burburo ku dhawaad 3 toddobaad militariga Turkiga waxa ay weerar ku hayeen dagaalyahaniinta Kurdiyiinta Suuriya waa talaabadii ugu dambeysay ee khilaaf iska hor keenaya labada dal ee NATO Usmaan Cabdi Xasan ayaa ka waramaya saaxiibtinimada isboortiga way ka fiican tahay tan siyaasadda marka la barbar dhigo muddada dheer Turkiga iyo Mareykanka ayaa Istanbul ku wada tababaranaya koox kubadda cagta ee Mareykanka loolanka halkan waa mid saaxiibtinimo kana yar midka u dhaxeeya dalalkooda dalalkan isbahaysiga NATO ah ayaa isku khilaafsan arrimaha Suuriya siyaasadda iyo xuquuqda aadanaha waxayna joojiyeen sanadkii hore viisooyinka waxa halkan laga dareemayaa xiriir khilaaf leh jawiga siyaasadeed hadda ma ogid waxa saxda ah ee dhici doona waxaana filayaa in hogaamiyaasha labada dal ay dabeecadooda degdeg u kacdo sida hore loogu arkay xayiraadii fiisaha marka laba wadan oo waaweyn hogaaminayaan laba qof oo caqliyadda noocan leh ma saadaalin kartid waxa berri ama beri dambe dhici doona Turkiga waxa uu hadda duqaynayaa dagaalyahanada Kurdiyiinta Suuriya ee Mareykanka hubeeyay Ankara waxaa looga arkaa argagixiso Washingtonna waxay saaxiib kula tahay dagaalka kooxda la baxday dawladda Islaamka khatarta tooska uga dhalan karta labada dal ee ugu xoogga weyn NATO ayaa kordhaysa dhib kuma qabno Mareykanka isku si ayay dhibaatada noo gaartay dagaal ayaan wada galnay 30,000 ayaa waddankan ku dhimatay sababo la xiriira urur argagixiso marka aan fiirino Mareykanka waxa ay siinayaan rasaas qubaro ciidamada Mareykanka way tababarayaan marka waxaan filayaa inay tahay halkii aan wax ka bilaabi lahayn khilaafka ayaa sii fogaaday markii wadaadka Mareykanka ku nool Fethullah Gulen
lagu eedeeyey inuu ka dambeeyey afgembigii dhicisoobay iyadoo ay adag tahay in la dhiibo wadaadka waxay turkiga xidheen shaqaale diblomaasiyiin maraykan ah taas oo ka caraysiisay washington waxayna saadaasha codaynta muujinaysaa in 3 meelood 2 meel halkan looga arko maraykanka khatarta ugu weyn ee turkiga xiriirka muhiimadda u leh amniga iyo beecmushtarka ayaa halkii ugu xumaa 10 sano joogo ardayda turkiga ee rajaynaya inay maraykanka wax ku bartaan ayaa si walwal leh ula socda khilaafkan baahsan ee qabsaday marka aad ruux ku tiraahdo maraykanka ayaan wax ku baranayaa gaar ahaan qaybaha bari ee turkiga ma jeclaysanayaan taas waxay u malaynayaan inaad tahay qof dalkiisa qiyaamaya marka aan ku soo laabanno goobta kubadda cagta tababar ayay samaynayaan maraykanka iyo turkiga balse waxaa adag in hogaamiyaashooda ay xalliyaan khilaafkan xagga ciyaarahana Tottenham ayaa martigelinaysa kooxda Newport wareegoodii afraad koobka FA markii ugu dambeysay labada kooxood hal ayay ku kala bixi waayeen xalayse kooxda Swansea City ayaa si xun ugu tumatay kooxda Notts County oo heerka labaada oo 8-1 ay kaga adkaadeen Swansea waxa arbacada ay wareega shanaad ishayaan Sheffield kooxda West Ham ayaa ilaa dhamaadka ciyaaraha la filayaa inay heshiis ay la saxiixato laacibkii hore ugu dheeli jiray Manchester United Patrice Evra laacibka oo 36 jir ah oo u dhashay Faransiiska kooxna kama tirsanayn ilaa bishii November kadib markii haraati uu ku dhuftay ciyaaryahan kale oo kamid ahaa taageerayaasha kooxda Marseille muran kadib miraha iyo khudaarta ayaa wax baahi weyn looga qabaa dukaamada maqaayadaha iyo waliba guryaheena laakiin beeristooda iyo qodidoodaba iyo waliba helida khudaarta aad ayaa loogu baahan yahay qiimahoodana sare ayuu u kacay laakiin hal ganacsade oo joogta magaalada Abuja ee Nigeria ayaa heshay hab cusub oo ah sida dadka loogu keeno khudaar markaasi uun la soo guray dhirtu aad uguma fududo inay ka baxdo cimilada kulul ee Nigeria taasoo keenayso inay ganacsatadu ay dibadda ka soo dhoofiyaan khudaarta balse beertan ku taalo duleedka magaalada Abuja ayaa xal u heshay arrintaas waxaan bilownay hab beereed oo aan ciid lahayn waxaanna abuurnay ansalaato markii ay soo baxday kadib ayaan ku fikirnay inaan sii ballaarino beerta waxaan bilownay inaan abuurno beer si gaar ah loo ilaalinayo waxaanna ku dhex abuurnay konteenar markii aan waraabino biyaha si toos ah ayay dhanka kale uga soo baxaan markaas bay soo raacayaan tubo kadibna dib ayaa loo isticmaali karaa waanad u jeedaa dhirta aan beerno kan casaanka ahna waa ansalaato beertan ayaa xooga saarayso inay si joogto ah u kobciso deegaanka iyadoo dhaqaalaynayso biyaha abuuraysana khudaar aan kiimikooyin lagu darin digada digaaga ayaan isticmaalnaa oo waxaanu ku darnaa bacrimeeyaasha kadibna waxaan ku qasnaa biyo marka 3 jeer ayaanu maalin kasta isku dhex qasnaa marka ay diyaar tahayna biyaha ayaanu beerta ku furnaa inaad ganacsi ka samaysato Nigeria ayaa ka fiican inaad jaamacadda Harvard dhigato maxaa yeelay wax walba ayaad ku baranaysaa degmadan biyaha ayaa aad ugu yar marka waxaan aruursanay lacagihii faa'iidada ahaa si aan biyo ugu gadanno caqabadaha kale oo nala soo darsay waxaa ka mid ah koronto la'aan hadda waxaan isticmaalaynaa matoor balse waxaan ururinaynaa lacag kale si aan ugu beddelno isticmaalka tamarta cadceedda qorshaha aanu ka leenahay beertan ayaa ah inaan ballaarino oo aan ka furno suuq khudaareed si ay dadku ugu soo dalxiis tagaan oo ay ugu nastaan balse waa inaan meel uun ka bilownaa marka hore waa aragti la yaab leh wararkan iyo kuwii ugu dambeeyba waxaad kala socon kartaa oo aad ka helaysaa bogayaga bbcsomali.com inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii caawa waad ku mahadsan tihiin daawashadiinna inta aanu mar kale dib u kulmayno habeen dambe waxaan idinkaga tagaynaa dhammaantiinba habeen wanaagsan